soo dhawaada asxaabteena dunida meel walba ka joogtiin iyo goor walba barahan ku leenahay social media sida YouTube-keena Doobiya Media iyo M-Doobiyo. dhacdo waliba sheeka ayaa ka dambeyso warbixinadaasi oo idilna Doobiya Media M-Doobiyo ayaa ka daawan doontaan kuwii gudaha iyo dibadda intaba. haddii ay ahaa lahaayeen dhacdooyinka siyaasadda quseeyo ee dibadda iyo sidoo kalena kuwa kale ee siyaasadda dalkeena hooyo Doobiya Media iyo M-Doobiyo ayaan kaga soo baahin doonaa. waxaana sidoo kale idiin soo tabin doonaa dhacdooyinka fanka iyo dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba intaba waxaa soo baahin doono M-Doobiyo iyo Doobiya Media. waxaana ka marneen tabintaasi aan soo tabin doono dhacdooyinkii isboortiska ee dalka iyo dibaddaba mar waliba ku xirnaa Doobiya Media M-Doobiyo. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. khiyaartuuna daawanaysa meel walba iyo goor walba iyo xilli walba idiin tahay waxaana wanaagsan waana saaxiibkiin Mustafa Maxamed Cali oo kala soo hadla Doobiya Media barteena YouTube-ka iyo sidoo kale barta kale ee Facebook-geena ee M-Doobiyo. alaabana waxaa nooga barateen inaan idiin soo baahino hadba dalkaada hooyo waxyaabaha ka jiro ee arrimaha siyaasadda islamarkaasi kuwoodii ugu dambeeyey qodobada aan idiin wado islamarkaasina halkan ka soo baahin rabo waxyaabaha dalkeena hooyo ka jiro kuwa xiisa leh aan soo xulan waxaa ka mid ah 6 kursi ee maanta Jowhar lagu doortay iyo xildhibaanadii ku soo baxay codadkooda musharaxiinta iyo farmaajo sidii ay u kala leeyihiin warbixin aan ka diyaarinay ayaan idiin soo baahin doonaa islamarkaasina halkan anigoo Mustafa Maxamed Cali kaga soo gudbin doonaa qodobada kalena waxaa ka mid ah maanta kulan waxaa yeeshay ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kalena dhigiisa dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta maxay ka wada hadleen socdaalka Roble halkaas markuu gaaro kulankoo la qaatay maxay isku afgarteen warbixin aanu ka diyaarinay waan idiin soo baahin doonaa balse hadday tahay markii kugu horeysay Doobiya Media YouTube-kan dul imaada subscribe-ka noo saarin fadlan calaamada gudaha horta subscribe-ka taabo gambalaalkana furo si aan macaamiil joogto u noqon like-tan dhiirigelin ayay noo taliya aragtina qaybtaas comment-ga nagu soo wadaag asxaabtaada sii share garay sidoo kalena M-Doobiyo Facebook-geena follow haddayna soo dhihin follow-na soo dheh isla markaasina like-tan dhiirigelin ayay noo tahay aragtidaadana comment-ga nagu soo wadaag asxaabtaadana u sii share garay mahadsanid haddii aanu ku bilaabo 6 kursi oo ka tirsan golaha shacabka aqalka hoose ee baarlamaanka 11aad ee soo socda doorashadooda ay ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle isla markaasina ay ku guuleysteen ilaa iyo 6 mudane waxaana mudanayaashaasi soo baxay lagu tirinayo codadkooda in ay leeyihiin qaar ka mid ah musharaxiinta iyo madaxweynaha muddaxireedka ka dhamaaday waxaana sidoo kale meesha ka baxday rajadii laga qabay madaxweynayaashii hore ee Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kalena Xasan Sheekh Maxamuud doorkay ku lahaayeen oo la sheegay in tagitaankooda cadale oo qayb oo ka ahaa ololahooda doorashada xildhibaanada Jowhar yaallo inay helaan balse maanta magaalada Jowhar ayaa waxaa ka soo dhex muuqday dad kale oo isla markaasina kuraastii kala duubtay waxaana kursiga hob 98 ku guuleystay Maxamuud Maxamed Jimcaale oo horey asiga ugu fadhiyay la sheegayaa in uu yahay codkaasi mid helay isla markaasina Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasad ahaan isku dhow yihiin waxaana sidoo kale hob 97 Khadiija Maxamed Diiriye mar kalena ku guuleysatay kursigaasi muddo dheerna ku fadhiday ayaa waxaa loo tirinayaa madaxweynaha muddaxireedka ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse geeska kale marka loo eego ayaa waxaa jirtay in kuraastii maanta la doortay oo ka mid ahaa kursiga hob eber 5 oo ku guuleystay Maxamed Cumar Aymuy oona u dhow yahay Cabdiqaadir Cosable sidoo kalena kursiga hob 88 ayaa Dahaba Suuso mar kale ku soo guuleysatay waxaan la sheegayaa in uu door ku leeyahay soo bixitaankeeda iyo guushaasi Cabdiqaadir Cosable asigoona sidoo kalena Yuusuf Kabaale oo ka mid ahaa maanta xildhibaanadii la doortay isla markaasina la sheegaya Daahir Maxamuud Egeele inay isku dhow yihiin balse meesha waxaa ka baxday rajadii ahayd saameynta iyo weliba mugga lahayd oo la rabay inay ku yeeshaan Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanada laga soo dooranayo gobolka Shabeellaha Dhexe ee maanta doorashadooda golaha shacabka ee Jowhar lagu qabtay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu magaalada Dubai kula kulmay dhigiisa ee dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaarahooda ahna madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi
kulanka ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu ahaa mid socdaalkiisa markuu halkaasi uu gaaray kulamada la qaadanayay madaxda dowladda Imaaraadka Carabta isla markaasina maanta ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale dhigiisa ka wada hadleen arrimo fara badan oo ugu horeeyo xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale isku taga Imaaraadka Carabta sidii loo sii xoojin lahaa iyo sidoo kale Imaaraadka sidii door ugu qaadan lahayd gargaarka abaaraha dadka Soomaaliyeed ee saameysay ra-iisul wasaare Roble ayaa sidoo kalena wuxuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta kala hadlay dhanka iyo waliba dalku galka viisaha Imaaraadka in la fududeeyo iyo sidoo kalena xayiraadii saarneed ganacsiga dhanka xoolaha Soomaaliya in laga qaado dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imaaraadka ayaa wuxuu soo dhaweeyay socdaalka ku gaaray kulankii maanta sidoo kalena ballanqaadi u sameeyay in uu gacan weyn ka qaadan doono sida abaaraha iyo sidoo kale dhoofinta xoolaha iyo ganacsiga xiriirka labada dal iyo dalku galka la fududeey doono markuu kulanka soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay isla markaasina faahfaahin ka siiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Carab isla markaasina kulankii u dhaxeeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta ahna madaxweyne ku-xigeenka wuxuuna uu yiri wasaaraha waxa kale wasaaraha waddanka Imaaraadka Carabta kala hadlay arrimaha ganacsiga iyo sidii loo xoojin lahaa sida loo furi lahaa xoolaha waddanka Soomaaliya oo muddo badan xayirnaa sidii ganacsatada loogu fududeyn lahaa imaatinka waddankan iyo viisooyinka guud ahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa ciyaartu hawada ku saaxiibnimo tan iyo mar kalena sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warbixinadaasi oo idilna Doobiya Media MDB ayaa ka daawan doontaan kuwii gudaha iyo dibadda intaba haddii ahaa lahaayeen dhacdooyinka siyaasadda quseeyo ee dibadda iyo sidoo kalena kuwa kale ee siyaasadda dalkeena hooyo Doobiya Media iyo MDB ayaan kaga soo baahin doonaa waxaana sidoo kale idiin soo tabin doonaa dhacdooyinka fanka iyo dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba intaba waxaa soo baahin doono MDB iyo Doobiya Media waxaana ka marneen tabintaasi aan soo tabin doono dhacdooyinkii isboortiska ee dalka iyo dibaddaba mar waliba ku xirnaa Doobiya Media MDB